saxaabigan qiimaha badan magaciisa waa Khalid bin Saciid bin Kulayb. uma malaynayo inuu jiro qof muslim ah oo aan aqoon cidda uu yahay. Rabbiga abuuray cirka iyo dhulka ayaa u doortay inuu marti qaado nabigiisa Muhammad markii uu u soo hijrooday magaalada Madiina. Nabiga suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee markii uu yimid magaalada Madiina, reer Madiinana waxa ay ku soo dhaweeyeen kalgacayl iyo jacayl xadaaf ah, ayaga oo qalbiyadooda u furay soo dhaweynta nabigooda nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Wadooyinka ay u istaageen hashii nabiga uu saarnaa, iyaga oo mid walba uu doonayay in uu marti qaado suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Mid walba oo ayaga ka mid ahna waxa uu lahaa rasuulka Allah agteena joog, rasuulka Allah agteena joog. Nabigana waxa uu lahaa ka leexda hasha way amran tahay. Hashaas sidii ay u socotay ayaa waxa ay hor istaagtay guriga saxaabi lagu magacaabo Abu Ayyub al-Ansari oo ah geesiga ay ku saabsan tahay qisadeena maantay. Guriga Abu Ayyub waxa uu ka koobnaa 2 dabaq. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayuu u diyaariyay dabaqa kore, balse nabiga waxa uu doortay dabaqa hoose in uu dego. Abu Ayyub isagana amarka nabiga ayuu qaatay oo meesha uu jeclaa ayuu dejiyay. Markii uu gabalka dhacay, Abu Ayyub iyo xaaskiisa ayaa qolka isugu tagay. Abu Ayyub ayaa xaaskiisa ku yiri, maxaan sameynay? Rasuulka Alle miyaa hoosteena seexinay oo inagana kor miyaan seexanaynaa? Rasuulka Alle korkiisa miyaan ku soo soconaynaa? Isaga iyo waxyiga miyaa kala dhex galaynaa?